wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland ayaa si rasmi ah u bilowday mashruuca horumarinta e-government ee Somaliland waxaana mashruucan iska kaashanaya wasaaradda isgaarsiinta iyo sanduuqa horumarinta ICDF ee dalka Taiwan waxaana madashii lagu ibafurayay mashruucan goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda isgaarsiinta iyo mas'uuliyiin ka socday safaaradda Taiwan ee Somaliland wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland Dr. Cabdiwali Sheekh Soofi ayaa ka warbixiyay ugu horeyntii muhiimadda mashruucani wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland in maanta aanu halkan ku kala saxano hirgelinta mashruuca e-government ama xukuumadda ku shaqeysa elektarooniga Somaliland iyada oo ay ka wada shaqeyn doonaan wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo sanduuqa ICDF ee Taiwan dabayado la fulinayo heshiiskaas ayaa maanta waxaan halkan u joognaa inaynu bilowno oo aynu hirgelino mashruuci e-government oo wax badan ka bedeli doona qaabka ay ummadda reer Soomaaliya nool yihiin maanta saddex dhinac baan hirgelinta ama saxeexan iyo heshiiskan maanta u fadhinay saddex dhinac bay awoodda saaraysay koowaad waxa weeye in la helo waxa la yiraahdaa TLD oo ah magaca internetka ee waddan waliba uu leeyahay oo aynu ka wada shaqeyn doono inaga iyo Taiwan sidaan u heli lahayn mid Somaliland ay leedahay hawsheedana kale bilaabi doonta waxa kale oo aanu ka wada shaqeynay waxa weeye in la isku furo xogta laamaha dawladda oo hayaan muddo ka hor waa tishiraan u qabanay laamaha dawladda anagoo ka hadlaynay in la wadaagi karo wixii xoga waxaan si halkan maanta u joognaa waa hirgelintii weey waxaan rabnaa in wasaaraddu waliba xogtii hayso ay la wadaagi karto wasaaradda iyo hay'adaha madaxa bannaan dhinaca saddexaad ee maanta aanu ka hadlaynay waxa weeye horumarinta hal abuurka tiknoolajiga dalka oo xarun sameynay wasaaradda maaragtay xarunta diyaarisay qalabeyntana xafiiska ama safaaradda Taiwan ee Somaliland baa naga caawisay marka saddexda dhinac baa maanta wajigii koowaad aan ku hirgelinay ilaahayna wax ka bareeno fududeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland Aamina Xuseen Maxamuud ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay wasaaradahan waxa naga go'an inaanu ka faa'iideyno fursadaha qaranka horyaalla ee tiknoolajiga la xidhiidha heshiiskan wuxuu ku yimid wada hadallo in badan soo socday oo safaaradda Taiwan iyo madaxdeeda iyo wasaaraddu galayeen muddo badan wuxuuna la xidhiidhaa sidii e-government-ka ama siyaasadda e-government-ka loo horumarin lahaa tiknoolajigana looga dhigi lahaa tahagta horumarka iyo dhaqaalaha dalka heshiiskan dhawaan la kala saxeexday runtii wuxuu ka bedeli doonaa wax badan ku kordhin doonaa horumarka tiknoolajiga ee dawladda iyo wasaaradda isgaarsiintu ay hormoodka u tahay waxaan rajaynayaa mashruucan ballaaran ee maanta bilowgiisii la dhaqaajinayo inuu wax badan ku soo kordhiyo horumarka dalka iyo tiknoolajiga ka wasaaradahaana waxa naga go'an inaanu ka gaarsiino tiknoolajiga halka ugu sareysa Mustafa Cadi Daawud oo kamid ah howlwadeennada wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland ayaa ka hadlay faa'iidada mashruucan u leeyahay dawladda iyo bulshada Somaliland wasaaradda isgaarsiintu waxay mar walba hiigsigeedu ahaa sidii ay hay'adaha dalka baahidooda rasmiga ugu gudbin lahayd anagoo wasaaradahan inagoo eegaynaa prioritiska wasaaradaha maxaa hadda dalka u muhiima waxay wasaaradda isgaarsiintu ku soo gunaanaday qaybta koobaad ee mashruucan in saddex mashruuc oo waaweyn lagu hirgeliyo wada qabsiga wasaaradda isgaarsiinta iyo hay'adda horumarinta Taiwan ay qabsanayaan Edwan oo ka socday safaaradda Taiwan ayaa xusay in mashruucani kamid yahay mashaariic dhowr ah ay iska kaashanayaan dawladda Taiwan iyo dawladda Somaliland